daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Israa'iil iyo Falastiin u dhaxeeyay. Dowladaha caalamka ayaa waxa ay ku baaqayaan in la dajiyo xiisada ka soo cusboonaatay Israa'iil iyo Falastiin iyadoo ay jirto gantaalo la isweydaarsaday. Mareykanka, Midowga Yurub, Britain ayaa ugu baaqay Israa'iil iyo Falastiin inay xiisada ay dajiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan. Koox hubaysan oo Falastiiniyiin ayaa waxa ay gantaalo ay ku rideen dhinaca magaalada Qudus oo Israa'iil ay xoog ay ku haysato, iyaga oo fulinaya ayaa la yiri hanjabaada hogaamiyaasha Xamaas in halkaasi la duqeeyo. Boqolaal Falastiiniyiin ayaa iyagu ku dhaawacmay rabshadihii ugu dambeeyay ee la galeen ciidanka booliska ee Israa'iil ka oo Isniintii ka dhacay magaalada Qudus. Israa'iil oo ka jawaabaysa duqeynta gantaalada ayaa waxa ay dowladaheeda dagaalka ay bartilmaameedsadeen saldhiggii jiida Gaza ee Xamaas ay ku leedahay. 20 qof ugu yaraan ayaa la soo wariyay oo ay ku jiraan 9 caruur ah in ay dhinteen, sida uu sheegay mas'uul ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Ciidamada Israa'iil waxa ay sheegeen in 3 ka mid ah dadkii duqeynta lagu dilay ay ka mid ahaayeen ururka Xamaas. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu sheegay in Xamaas ay ka soo gudubtay qadkii guduudnaa. Israa'iil waxa uu tilmaamay in ay si adag uga jawaabi doonto gantaal waliba oo uga yimaada dhinaca jiida Gaza. Waxa ay ku hanjabeen kooxaha hubaysan ee Falastiiniyiinta in haddii ay sii kororto xiisada Israa'iil iyo Falastiin inay sii wadi doonaan duqeynta ay ku hayaan meelaha ay kaga sugan Qudus ciidanka booliska Israa'iil iyo sidoo kale in gantaalada ay gaarsiin doonaan magaalooyinka Casqalaan iyo sidoo kale deegaanada Israa'iil. Falastiiniyiinta ayaa iyagu waxa ay ka careysan yihiin tallaabooyin adag oo ay soo rogtay Israa'iil ka oo ay dadku ay ku gaarayaan masjidka Al-Aqsa. waqti hore oo talaadada ah oo maanta hay'adda lanqeyrta cas ee Falastiin waxa ay sheegtay in ka badan 700 oo Falastiiniyiin ah inay ku dhaawacmeen rabshadihii gacanka hadalka ah ee u dhaxeeyay ciidamada Israa'iil iyo sidoo kale dhalinyaro Falastiiniyiin ah oo ka dhacay magaalada Qudus iyo Daanta Galbeed. Wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken ayaa waxa uu sheegay in Xamaas ay joojiso weerarada gantaalada ah. Waxa uu sidoo kale uu yiri waa in dhinacyadu ay qaataan dhammaan mas'uuliyadda ah in la joojiyo gantaalada lagu dul dagaalamayo dadka rayidka. Afhayeen u hadashay aqalka cad ee Mareykanka Jim Bezaka ayaa waxa ay ka dalbatay dhinacyada in ay joojiyaan xiisada. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa ay tilmaantay inuu dareemayo walaac ku saabsan xiisada sii kordhaysa. Wasiirka arrimaha dibadda ee Britain Dominic Raab oo isagu war soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu sheegay in weerarada gantaalada ah ay loo baahan yahay in la joojiyo. Waxa ugu baaqay in dadka aan lagu dul dagaalamin sida hadalka uu dhigay. Mas'uulka siyaasadda arrimaha dibadda ee Midowga Yurub u qaabilsan Joseph Borrell ayaa waxa uu sheegay in xiisada oo sii kororta ee Daanta Galbeed, Gaza iyo Qudus bari ay dhici karto in dad badan oo rayida ay saameyn ay ku yeelan doonto. Waxa uu ku baaqay in la joojiyo sida ugu dhaqsiyaha badan. Fadhiga Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee degdeg ah ee la qaatay ayaan wax bayaan ah laga soo saarin. Laba mas'uul oo ka tirsan Golaha Amniga gaar ahaan diblomaasiyiin iyagu xog ogaal u ahaa fadhiga Golaha Ammaanka ayaa u sheegay wakaaladda Associated Press in Qaramada Midoobay, Masar iyo Qatarba iyagu ay ahaayeen kuwo isku dayaya in ay dhexdhexaadiyaan Israa'iil iyo Xamaas si ay dagaalka u joojiyaan. Saraakiisha Israa'iil ayaa waxa ay sheegeen in ay iyagu ay ka jawaab celin doonaan duqeyn waliba oo uga timaada kooxaha hubaysan ee iyagu ka dagaalama jiida Gaza. Jihooyinka dhinaca midig u janjeera ee Israa'iil ayaa iyagu waxa ay soo abaabuleen dibadbaxyo waaweyn oo Qudus bari ay ka dhigayaan kuwaasi u dabaaldegaya ayaa la yiri markii dhulkaasi xooga ay ku qabsadeen 1967. Boqolaal qof oo dhalinyaro Yuhuudi ah ayaa iyagu waxa ay wateen calamada Israa'iil kuwaasi wadooyinka la marayay iyaga oo sheegaya in ay si xoog ku haystaan dhulkaasi. meelaha ay marayeen waxa ka mid ah magaalooyinka Qudus, Baab Dimashq, Mardadiin, Agaan, halkaasi oo ay tilmaameen in ay tahay dhul ay leedahay Israa'iil. Falastiiniyiinta oo dhacdooyinkaasi ka soo horjeeda una arkay in ay tahay daansi ayaa iyagu waxa ay uga jawaabeen dhagaxeen iyo sidoo kale in ay rabshad ay uga hortagaan qolooyinka sidaasi ku dhaqmay. xaafadda Al-Sheikh Jarraax ee Qudus ku taala maalmihii ugu dambeysay waxaa ka jiray isku dhacyo u dhaxeeyay dibadbaxayaal Falastiiniyiin iyo booliska Israa'iil. Israa'iiliyiinta iyagu halkaasi xooga ku haysta guryahana ka dhisay ayaa waxa ay yihiin kuwo la dejiyay ka hor sanadkii 1948
waxaa la filayaa ayaa la yidhi in kulan degdeg ah ay ka qaataan maxkamadda cadaaladda sare. kulankaasi ayaase la baajiyey. ciidamada booliska Israa'iil ayaa waxa ay iyagu ay sheegeen in kumanaan Falastiiniyiina in ay isku gidaameen dhismaha weyn ee masjidka iyaga oo dhagaxaan iyo dhalooyin wata, kuwaasoo doonayay in ay ka hortagaan ayaa la yidhi qowmiyadda Yuhuudiga oo halkaasi ku qabanaysay isku soo bax weyn. ciidamada ayaa waxa ay sheegeen in ay ka war heleen in dadkaasi ay galeen masjidka, balse waxa ay tilmaameen in ay ka soo gudbeen sidoo kale barihii boolisku ay lahaayeen, taana ay keentay isku dhacyada u dhexeeya booliska Israa'iil iyo sidoo kale Falastiiniyiinta. booliska ayaa iyagu waxa ay sheegeen in ay u adeegsadeen gaaska sunta ah, waxaana sidoo kale jirtay rasaas nool ah oo ay la dhacayeen dhalinyarada Falastiiniyiinta. fiidiyoyo lasoo duubay oo lasoo dhigayay baraha bulshada ay ku wada xiriirto ayaa waxaa la arkayay iyagoo isku gacan qaadaya dhalinyarada Falastiiniyiinta iyo sidoo kale ciidanka Israa'iil. gudaha masjidka ayaa la arkayay isku dhacyo weyn inuu ka dhacay. masjidka Al-Aqsa oo ka mid ah masjidka saddexaad ee xaramka ayaa waxa uu yahay ayaa la yidhi meelaha dhowr jeer ay isku dhacyadu ay ku dhex mareen ciidanka Israa'iil oo iyagu u diida dhalinyarada in masjidkaasi ay ku tukadaan. hay-adda Lanqeyrta Cas ee Falastiin waxa ay waqti hore ay sheegtay in 305 qof oo Falastiiniyiin ah isku dhacyadu inay ku dhaawacmeen, 228 qof oo isbitaalada la dhigay, 7 ka mid ah xaaladooda aad ay u adag tahay. booliska Israa'iil waxa ay sheegeen in 22 sarkaal oo booliska ka tirsan in dhaawac uu soo gaaray, 3 ka mid ah xaaladooda waxa lagu dabiibayaa isbitaal. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu difaacay habdhaqanka booliska Israa'iil ay kula dhaqmayaan dadka Falastiiniyiinta. dagaal ma ogolaan doona ayuu yiri, sidoo kale foodo ma ogolaan doona ayuu hadalkiisa ku yiri. waxaa jirta ayuu yiri kooxo iyagu doonaya in ay gacanta ay kula tagaan saraakiisha booliska Israa'iil. madaxweynaha maamulka Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas ayaa waxa uu si kulula u cambaareeyay Israa'iil awoodaha ay hadda u adeegsanayso shacabka reer Falastiin. Nabil Abu Radina afayeen u hadlay madaxweynaha maamulka Falastiiniyiinta waxa uu sheegay in weerarada wuxuushnimo ay ku dhaqmayaan ciidamada Israa'iil ayna u geysanayaan dadka ku tukanaya masjidka Al-Aqsa in ay tahay mid xadgudub ah oo ka soo horjeeda shuruucda caalamka. wuxuu ugu baaqay beesha caalamka in arrintan aysan indhaha ka laabanin. toddobaadyada ayay soo socdeen isku dhacyada u dhexeeya Israa'iil iyo sidoo kale Falastiiniyiinta oo ka dhacay barxadda weyn ee masjidka Al-Aqsa. warbixinada qaar ee soo baxaya waxa ay sheegayaan in ciidamada Israa'iil ee booliska ay dibadbaxayaal ay gacanta ay kula tageen magaalada Haifa oo u dhow magaalada Ramallah. boqorka wadanka Jordan Abdullahi Al-Thani ayaa isagu waxa uu si kulul u cambaareeyay gabadfalada Israa'iil ay sii kordhisay ay kula kacayso shacabka Falastiiniyiinta ee iyagu ku cibaadeysanaya masjidka Al-Aqsa ee barakeysan. haddaba maxaa ka dhigay magaalada Qudus meesha kaliya ay isku gacan qaadaan Falastiiniyiinta iyo sidoo kale Israa'iil? magaaladani waxaa ku hareeraysan goobo kale oo iyagu ay ku cibaadaystaan Yuhuudda, kaas oo muddooyin qarni ah soo jiray. ahmiyad weyn ayay u leedahay ayaa la yidhi dhinaca diimaha qowmiyadaha halkaasi ku kala nool. waxaana Israa'iil dhowr jeer ay iyadu ay isku dayday ayaa la yidhi in ay xooga ay ku muqooniso dhalinyaro iyagu isku dayay in ay salaada ay ku tukadaan masjidka Al-Aqsa. goobahaasi sidoo kale waxaa ka agdhow kaniisado ay Yuhuudda halkaasi ay ku leedahay, meeshaasi oo ay Israa'iil sheegtay in ay kaga baqayso in dhalinyarada Falastiiniyiinta ay si xooga ay ku galaan. Falastiiniyiinta ayaa dhinaca qaybta bare ee magaalada u aqoonsan in ay tahay caasimadda dowladoodii mustaqbalka ah ee magaalada Qudus. isku dhacyadoo sii xoogeysanaya ayaa waxa ay sababeen in 12 qof ay ku dhaawacmaan. rabshadahaasi u dhexeeyay Israa'iil iyo Falastiin ayaa waxa uu sababay in 12 qof ay dhaawacmaan, iyadoona la arkayay in dibadbaxayaashu ay dhagaxaan iyo sidoo kale dhalooyin laga soo buuxiyay waxyaabo qarxa ay u adeegsanayeen saraakiisha Israa'iil. laamaha amniga iyo sidoo kale kuwa caafimaadka Falastiiniyiin ayaa iyagu si weyn u taabinaya dhacdooyinka iyo sidoo kale dadka weeraradaasi waxyeeladu ay ka soo gaarto. qorshaha Israa'iil ayaa waxaa la tilmaamay in uu yahay in ay ka saaraan Falastiiniyiinta guryaha ku leh
xaafadda al-sheekh jaraax ee magaalada Qudus, halkaasi oo ay doonayaan in deegaameyn cusub ay Yuhuudda ay ugu sameeyaan. Guddiga afargeesoodka ee nabadda ee Bariga Dhexe oo ka kooban Mareykanka, Midowga Yurub iyo Ruushka qaramada midoobay ayaa iyagu waxa ay sheegeen in xiisadani ay aad uga walacsan yihiin. xiisadaasi oo ay ku tilmaameen in dhinacyada looga baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku dejiyaan. ciidamada Israa'iil bartooda Twitterka waxa ay soo dhigeen war ay ku sheegayaan in ay duqeeyeen saldhigga militari ee kooxda Xamaas ay ku leedahay koonfurta magaalada Gaza, inkastoo aysan jirin tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan dhacdooyinkaasi iyo sidoo kale waxyeelada gantaalada Israa'iil ay ku riday dhinaca Gaza laga warbixiyay.